أسعد أبنا مدحن شريف أنا قبضتين مقرن مكاس فوق ما أسعد أبنا زامرتا أنت قابل السام بسم الله الرحمن الرحيم sida la socotiin waxaan kulan la lahayn cawada saacado qaatay ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda xilgaarsiinta oo maalmahan ay shir noo socdeen caawana aan isugu nimid inaan ka amban qaadno kulamadeenii hore safargaradii hore aan gaarnay waxaa noo dhimanaa arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka iyo amniga intaba midowga wuxuu soo jeediyey qodobo wax ku ool ah in wax laga xaliyo lug lahaa taliyaashii ciidanka arrintaas ka dambeeyey laga qaado tilaab madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday oo wareejiyo mas-uuliyadda amniga oo ku wareejiyo xukuumadda sidoo kale saaxada siyaasadda in la furo oo dadku si xor ah ay siyaasadda ama activityada siyaasadeed ay u samaysan karaan xilli doorasho maadaama lagu jiro inkastay masaaxada siyaasadda mar kasta ay furnaataba ay sax tahay iyo mandateka madaxweynaha hore ee xilligiisa dhammaaday waxa laga yeelayo iyo sidoo kale arrimaha la xiriira kaalinta midowga oo ku yeelanayo wadahadallada doorashooyinka la xiriira ee shirarka loo madlan yahay intaba waxaan isku daynay xal kasta oo suuragal ah inaan wada gaarno taas laakiin laguma guulaysanin nasiib darro xilligaana aragtaanoo saddexdii subaxnimo lagu dhow yahay waxaan u soo jeednay in arrimahaas xal laga gaaro si hore loogu socdo looguna ambanqaado in la fududeeyo wax kastoo suuragala ee dalkan doorasho uga dhici karto dadaal kasta oo midowga bixiyey iyo tanaasul kasta uu sameeyey runtii taas beddelkeeda annaga maan arkin waxaan aad iyo aad uga xunnahay in dad go'aanka ayaga iska leh oo dastuuriyan iyo siyaasiyanba u leh oo aan cawadoo dhan la fadhinay inay muuqatay go'aanka ayaga inaysan lahayn waa nasiib darro u soo hoyatay taariikhda siyaasadda soomaaliya runtii waxaan jeclaa lahayn inay kalsooni isgeliyaan oo ay aaminaan inay talada iyo go'aanka dalka siyaasadeed ayaga leeyihiin laakiin qoraal kasta ama is-afgarad kasta oon gaarno waxay ahayd in laga soo ansixiyo meel kaloo shirka ka baxsan taasaana keentay inuu saacado qaato shirka oo dib loogu celiyo weliba iyadoo fariin qoraal ah taasaan u dul qaadanay saacado u joognay ciddii fariin qoraalka soo diraysana ay diiday in hore loo socdo ciddaasoo aad garanaysaan oo ah madaxweynaha xilkiisa dhammaaday oo gadaal uga dheggan dadka aan wada hadalka kula jirnay waa nasiib daro runtii aad iyo aad u xun una soo hayay taariikhda siyaasadda soomaaliya iyo dadkii aan wada hadalka kula jirnay oo ahayd inay si saxa siyaasadda u matalaan si saxana arrimaha doorashooyinka iyo wadahadallada iyo dhacdadii 19 febraayo ay wax uga qabtaan oo ay matalaadeeda iyo maqaamkeedii miisaankeedaba ay yeeshaan laakiin taas ma dhicin sidaas daraaddeed wixii mas-uuliyadda ay dalkan ka xumaada ayagaa qaadaya mas-uuliyaddeeda waa mahadsantihin wasalaamu calaykum hal way noo yeereen